وأنا وناكسن halkaan ku sugannahay waa Bot Studio waxaan maanta martiigu ah Maxamed Xasan Cusmaan waa aqoonyahan Soomaaliyeed in badan qurbahan ku noolaa waxaan igala qayb qaadan doonaa doorashadan dalka Sweden ka socota iyo aragtidiisa sida uu arko waxa kaloo martiigu ah oo isaguna xildhibaana ama u sharaxan inuu xildhibaan ka noqdo baarlamaanka gobolka iyo Kommun Fullmakt magaalada Uddevalla waxaanu ka sharaxan yahay xisbiga Vänsterpartiet waa Axmed Cige oo aan horay wareysiyo kala duwan horaan la yeeshay maantana inala wadaagi doona aragtidiisa siyaasadeed iyo isbedelka uu tiigsanayo iyo kaalinta uu ka jiro xisbiga iyo talooyinka guud ee uu la wadaagayo bulshada Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Xasan Cusmaan iyo Axmed Cige ku soo dhawaada waxaan ku horeynayaa Axmed Cige horena waynu u kulannay imkana waxa igu maqaala ah sida adiguba noo cadeysay in aad xisbiga Vänsterpartiet dadka ugu cadcad inaad ku jirto magaaladaadana bulshada Soomaaliyeed ee maanta u sharaxan inaad ka mid tahay bal marka hore intii aad wadankan deganayd goortaad xisbigan ku biirtay xisbigan mugdiisa hadii aad nooga waranto iyo qaabka aad ugu biirtay iyo hadii qofka siyaasiga ah ee siyaasadda markaa hunguri ka galay ee ula dhiil gareyn karayo xisbiyada dalka adigoo mahadsan Axmed Cige بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي أحمد عige waxaan ka sharaxanahay xisbiga Vänsterpartiet waxaan u sharaxanahay baarlamaanka Sweden gobolka galbeedka Sweden waxa kale oo sharaxanahay golaha deegaanka magaalada Uddevalla sidaan hore idinku sheegayba aad baa ugu mahadsantahay su'aasha aad weydiisay laakiin waxaan filayaa laba su'aalood isa saaran bay ahaayeen mid ahaan haddaan ku horeeyo markii koobaad markaan soo galay xisbiga muddo adduunka laga joogo 5 sanadood ka hor ayaan ku soo biiray xisbiga Vänsterpartiet intii aanan ku soo biirin xisbiga Vänsterpartiet runtii de mabaadidiisa iyo wuxuu u taagan yahay ayaan soo akhriyay soo qaxay kadibna markaan arkay in danta guud dadka ajnabiga dadka shaqaalaha umada ku nool dalkan Sweden inuu u wanaagsan yahay ayaan go'aan waxaan qaatay inaan ku soo biiro xisbiga marka xisbigani runtii wuxuu ku wanaagsan yahay waxa weeyaan umada ajnabiga uu wanaagsan iyo inta kale bini'aadanku uu sameeyay diimuhuna way u sameeyeen ka faqiirkuna inuu soo kaco ka taajirkuna inuu bixiyo lacagta badan ee iskaadka ay kan shaqaalaha 20 kun ku shaqeynaya maanta dadka shaqaalaha in iyaguna iskaad yar ay bixiyaan dadkuna ay shaqeeyaan 6 saacadood imika waa ayuu doonaya marka waxa weeyaan xisbigan waxa xisbi noodana marka insha Allah taasaan kaga baxaya taladaas waxa dhay waxaan kula taliyay dadka siyaasiyiinta maanta sharaxan amba kuwa hunguri kaga jiraba taladaas siinaya waa tala kooban waxaan leeyahay xisbiga intaanad soo gelin waa inaad mabaadidiisa soo akhrisaa waa inaad garanaysid xisbigan wuxuu u taagan yahay kadibna markaa aad go'aan qaadataa inaad xisbiga aad jeceshahay aad ku darsantaa laakiin maanta waxa weeyaan maanta Soomaali fara badan baa sharaxan runtii aad iyo aad baan hambalyo ugu wada dirayaa meel walba ka joogaan dalkan Sweden waana inoo wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa inaynu gaadhno himiladeena taasoo wax ugu tareeno dalkan iyo dadka ku nool waayo waxa weeyaan maanta waxaanu matalaa dalkan Sweden baynu matalaa haddana Soomaaliland ayaa loo qaadan qofka Soomaaliga sharaxan
inuu Soomaalida oo kaliyaata uu matalayo adwaasan waan kugu soo noqon doonaa Axmed Cige Maxamed Xasan Cismaan maxamed oo ku soo dhaw Board Studio sidaan horeba u sheegay waxa tahay shakhsi Soomaaliyeed in badan qurbahan ku noolaa doorashooyin fara badan soo taagnaa bal marka daraasad ku sameysay adigoo ka duulaya doorashadan dalka Sweden ka socota iyo sida aad u arkayso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذه استوديو جاga iyo dhamaanba bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Sweden aad baan salaamaya runtii ma hada horta marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynaya dhamaanba shacabka Soomaaliyeed ee Sweden ku nool iyo in alaale intay soo sharaxday xisbi kastaba ay iska soo sharaxdo ee chance ka qaadatay tan musharaxnimada haday tahay deegaanka haday tahay baarlamaanka iyo haday tahay baata kulaha deegaanka adigu ma waa saddex baan u maaranayaa saddex iyo ta gobolka leeyahay ka raali ka ah ta gobolka iyo ta baarlamaanka iyo ta kamuunka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dhamaantoodba in allaale iyo intaas ka soo sharaxday laakiin waxaan oran lahaa runtii muhiimadna ah ummadu horta inaynu istabayaacno oo la istabayaaco waa laga wanaagsan yahay ta koobaad qofku inuu sidoo Axmed Bahdirta uu ka dhawaajiyay waa inuu marka ugu horeysa mabaadiida iyo shuruucda xisbiyada waa inuu qofku marka ugu horeysa uu garanayo soo akhristo hadii uu marka shuruucda uu soo akhristay ama sharciyada u yaala xisbiga uu garanayo uu iska soo sharaxo talabaad waxa weeye qofku maaha inaad adigu kaliya shakhsiyadaada oo kaliya inaad soo caanbaxdo oo aad magac yeelato inaad meesha soo sharaxdo laakiin waxa wacan qofkani muxuu u qabanayaa bulshada muxuu dawladda u qabanayaa muxuu kamuunka u qabanayaa qofku inuu ka duulo marka ugu horeysa halka ka duulo oo yiraahdo dawladdan maxaad ugu jiran tahay maxaad kamuunkan aad iska soo sharaxday ama baarlamaanka iska soo baxday ama ta dawladda hoose ama ta kalaba aad u qabanaysaa bulshadaadana maxaad ku soo kordhinaysaa laakiin hadii aanu qofkii wuxuu bulshadiisa u soo kordhinayo wuxuu dawladdu u kordhinayo aanu garanayn ee uu kaliya ka duulayo in la yiraahdo waxa weeyaan waa xildhibaan ama baarlamaanku ku jira oo uu magac doon yahay de wax maxamed uu soo kordhaya ma jirto haddaan kaaga soo qaado imka de Soomaalideena kala dalqaad kaaga waramo waxa jira dad fara badan oo ah ajnabi oo xisbiyada ku jira laakiin way muuqdaan dadkooduna way muuqdaan iyaguna way muuqdaan marka dadkaaga wax u qabato marka ugu horeysa beertiga waxa la siiyaa waa inaad bulshadaada wixii aad u qabato oo aad mid ka ahaato kadibna aad u qabato marka taada samcada waxaad ku yeelanaysaa marka bulshadaada aad ka soo jeedo aad wax u qabato adigu samcad yeelanaysaa laakiin waxa muddaynka Soomaalidu inuu qofku isaado marka ugu horeysa adigu samcad yeelo oo uu ka horeeyo tii umada u qaban lahaa hadhowta marka uu noqdo taayir banjaray waayo waxa weeye dadkii ku soo saaray iyo ummadii aad u balan qaaday marka aad ka leexato ee aad waxba u qaban weydo ee aad garan weydo halkii aad fadhiday ama magaranaysaa wixii aad u qaban lahayd waxa weeye wad banjaraysaa marka runtii aan waxaan lahaa Soomaalida aad iyo aad baan soo dhaweynaya waan ku mahadsantihiin meel kasto aad joogtaan Soomaalida halkaana ka sii wada laakiin waa inuu noqonaa dad isku aragti isku fikrad isku maskax ummadda wax u qabanaya markaas aad adiguna qabsan kartaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waan mahadsantihiin labadiinuba haddii aan waxoogaa idinla yara wadaago falanqaynta anigoo jecel inaan Axmed Cige maadaama uu isagu dee xisbiga Venstre Party-ga uu sharaxan yahay oo uu gobolka iyo baarlamaankana uu doonayo inuu ka dhex muuqdo waxaan isaga u badin doonaa aragtidiisa siyaasadeed laakiin aniga Maxamed ahaan marka aan u soo noqdo Maxamed oo intii aad joogtay qurbaha
hadday noqon lahayd dalkan aynu ku noolahay ama dalalkan aynu jaarka nahay dalalkan iyada la isku yidhaaho Soomaali badan oo siyaasadooda ku milantay ayaa jirta halkii ay markay soo galayeen siyaasadana si xawli leh bay ku soo galeen aakhirkiina runtii waxay noqdeen dad aan u soo diyaar garoobin mawjadan ay galeen kadibna waxa ay dhex dabaasheen arrimo badan oo aan waxba ka qaban karin sida haddaan ku yaro xusuusiyo inan ayaa la oran jiro baarlamaanka dalka Netherlands nasiib u yeelatay inay ka dhex muuqato aakhirkiina Mareykanka iyadii maangeliyo loogu qaaday marka aragtida aan doonay markaan adiga ku weydiiyo anigoo jeclaan bulshada Soomaaliyeed ee dalkan degan mid wax dooranaya iyo mid hunguri siyaasadeed uu galay inaanu la wadaagno waxa ma ka xusuusataa sheekada ma ku maqashay sheekada ayaan horta maxamed oo aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii horta hadii ama ayaan ha noqoto ama wadamadan kale ee yuda la isku yiraahdo haba noqotee wajiraan taasna waxa keenaya horta marka ugu horeyso qofkani ma u bisil yahay siyaasadda ayaa taala qofka hadii aan siyaasadda u bislayn imka dadkan aynu la joognaa ama Sweden ha noqoto ama dadkan Europe kala ha noqoto waxa weeye qofku gurigiisa isagoo baanahaagaha jooga ayaa aabihii ilaa iyo awowgii waxa lagu soo kobciyay siyaasad iyo xisbi go'aan marka waxa oran karaa anigu marka aynu inagu Soomaali ahaan aynu nahay waxa weeye isla markiiba wuxuu geliyaa siyaasadda markuu galo waxa laga yaabaa in lagu guurada oo aanu garanayn waxaan Allah iyo waxa uu garanayay uu meeshan uu galay waxaan oran karaa kale qofku waxa wanaagsan marka aad xawliga ku soo socoto ee aad timaado ka soo qaad inaad ahaydba buuga aad kaga taalibaal konton iyo 1 ama konton iyo 5 ama konton iyo 6 ama sidoo doontaba ha noqoto oo aad timaado toban numberka tobnaad ba aad timaado oo aad noqoto xisbiga numberka tobnaad ba aad noqoto waxaan ku xasuusinayaa maxamed oo ma garanaysaa oo qofkani ma garanaya numberkan tobnaad ee uu soo galay shaqadiisii miyuu garanayaa mise ma garanayo waxa jirta shaqadan ma garanayo baan anigu taaganahay waayo haddii uu garanayo xafiisku fadhiisan lahaa hawshu qabsan lahaa meesha uu ka geli lahaa ayuu wadi lahaa waxa laga yaabaa inaanu tir dhaxaad uu noqdo oo uu noqdo wax baran oo leeyahay ama magaciyaar noqdo laakiin aanu meeshiiba soo gelinay awrkiisa lagu soo kacsaday marka haddana ayaano kale aan kaaga soo warramo qofku inuu xawl u socdo Soomaaliga dhibku ma aha uu socon karaayo aqal intuu garaaco oo kale igu soo rida laakiin maxaa ka dambeynaya baa taala qofkan siyaasadda ma u bisil yahay siyaasi ma yahay ma soo bartay ma yaqaana nimankan iyo siyaasadahooda iyo dhaqankooda ma garanaya mise ma garanaya waxa weeye wasan rabo kugu soo sheegay kelmadii aan ku lahaa isaga doonaya inuu soo baxo laakiin waxa umada uu masiira iyo wuxuu u hayo toona ma jirto ayaan ku leeyahay maxamed oo taas haddaan soo noqdo Axmed Cigow كحسبي أهان حسبي كفنس تباتيجا واحد ترشتي سنة وجود بيبا وكده موفي هداد بشر اللي هو ذاك تو أركتي على عفرت السنة وده صوص صعدة هداد كقولي يستو إن هذيكس كانديدات نقطة قبل كعلو فريستو عشان ضياش عاد كدوني سو أما يسبدل كأدوني سو إن حسبي وكسو كشخصي أنا ذي أحمد عقان هاد ما صرتي مهديو هي دمان بالشدة الصومالية لرجيسنسا يا قويهن محمد بقى أديات بدل ما تنتي دمانتي بقى أد بدل ما تنتي وحوينا رنتي أفرت السنة ذا سوس عطاء تكوبات هرتوا مبادئ حسب جيجا إن المرو البمال مريو أنكو شقيو وامدي جوان وشرعه ومرنا أنا بين حلو قدافك مبادئ أنكو شقينا يرى وامدو دنا تلك iyo dadka iyo cid walba oo ku nool maanta dalka Sweden aba ajnabi ha noqdaan aba Soomaaliya ajnabi waska bidoone ya meel walba ka soo jeedaan marka horta hadafka koobaad waxa weeyaan inaan hirgeliyo mabaadi'da xisbiga oo hadda tahay baarlamaanka
iyo hadday tahay ta golaha deegaanka aba kamuun fulmagtiga inaan mar walba ay noqoto xisbiga Fenster Party-gu gacanta ugu sareysa talabaad ku jirta ajendaha waxa weeyaan bulshada aan ka soo jeedo runtii maanta waxa weeyaan baraarujin bay u baahan yihiin dhinac walba ah hadday tahay waxbarasho hadday tahay habkan ay bulshada wax la qaybsan lahaayeen xaqooga u doonan lahaayeen iyo hadday tahay caruurta dhalinyarada ah ee maanta dalkan ku dhalatay amba la keenay runtii u baahan in gacan lagu qabto wado saxana la tuso taasina waxay qaadanaysaa waxa weeyaan waa wax maskaxiyan aan ka soo shaqeeyay muddo dheer aanan garanayo insha Allah bismillaah kariim wadadaan marayno inaan hore u qaado intii karaanka insha Allah taasaan ka baxay maasanta aad baad u mahadsantahay waxaan ku soo noqonayaa maxamed waxaan jecelahay inaan kula wadaago siyaasadda qaaradda Yurub ee imka aynu ku noolahay sida Norway, Denmark iyo dalal badan oo EU-da waxaa ka go'an kadib markii ay qabsadeen xisbiyo lagu tirinayo inay yihiin xisbiyo aan u xagleen qaxootiga ama soo galootiga in Norway ay xabsiyo ka samaysatay dalka Norway dibadiisa guud ahaanna Soomaalida in dib loo celinayo su'aasha markaa aan doonayo inaan bulshada la wadaago maxamed ahaan marka doorashada loo soo noqdo bulshada Soomaaliyeed waxa loo tiriyaa inay yihiin bulsho aan codayn ama aan garanayn qaabkay u codayn lahaayeen iyadoo lagu salaysiinayo aqoon darrada luqad la'aanta iyo wixii la halmaala iyo guud ahaan qaabka ay xisbiyadu u shaqeeyaan oo ay ka dhacsan yihiin intooda badan taasaa waxay keentaa qofku haddaan u garanayn inta uu codeynayo iyo sababta uu codeynayo iyo codka waxa uu ku helayo way ku adkaanaysaa marka waxaan doonayay maxamed ahaan maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed adigoo ka duulaya dalalka aan soo sheegay sida ay xisbiyada kale ugu guuleysteen haddii aanay codeyn la wadaagay bismillaahir rahmaanir rahiim horta maxamed aad iyo aad su'aal aad iyo aad wanaagsan baad weydiisay haddii aan ku weydiiyo su'aasha laftigeeda way jirtaa Soomaalidu fardhi ku tarbay inta badan ay isu weydiiyaan xisbiyada iyo garansa kay ugu ridi lahaayeen nin waliba wajibu iska tusaa laakiin waxa aan haddii aan maxamed ahaan aad weydiisay qofku marka ugu horeyso inuu daraasad soo sameeyo soo akhriyo mabaadiidooda sharciyadooda qaar baa wanaagsan caruurta iyo hooyooyinka iyo dhallaanka qaar baa wanaagsan shaqooyinka iyo abuurista shaqada qaar baa wanaagsan wax qabadka iyo hawada iyo magaranaysa cimilada wanaagsan qofku inuu marka ugu horeysa uu sameeyo daraasad oo uu akhriyo dabta meeshii uu ku qanco oo ugu rido imka kaba soo qaad Swedishka hadad weydiiso oo imka aad tagto aad ku taado xisbiga ugu ridaysa ma garanayo buu ku leeyahay waayo sirtiisa inuu ku sheego ma baahwa laakiin xisbigu uu yahay isaguna uu og yahay waanu garanayaa amaanta ugu dambeysay ee doodaha la qabanayana ka uu marka uu interest-ka uu ku arkaa ugu ridaa laakiin inaga aan garanayn Soomaali ahaan inaga aan garanayn afkiina aynaan garanayn ayaa waxa la oranayaa Arbis Party ama waxa leeyahay social parties ama Fenster ama mid kastaba ha noqdo qaar ba waxa koonayaan cusuriinta baan ugu ridaynaa haday doonaan marka waxa weeye waa ku kufo qalinkaaga ku sax qaar waxa jira mala guryaha inta loogu tago aan garanaynba looranayo noo sax oo aan garanaynba kuwa ay u saxayaan ku yihiin waxa laga yaabaa inay u tagaynayaan waxa wanaayo socialkii baan maay dabta ay cusuriinta soo saxaan oo shumburkooda ay soo siiyaan tunkooda number marka horta aqoon la'aan baa jirta halkaas in haysata aqoon la'aantaasna waxay noo keenaysaa inay dadkii aanay garanayn ba meel allaaliya meel ay ku socdaan iyo meel ay ka socdaan oo hadduu dowlad qaar ay ka fikirayaan bay oranayaan wana keenana wana la keeno masaariiftana laga bixiyaa laakiin mabda kale oo uu siinayo iyo mabda kale oo uu dooranayo
aanu jirin waana la keeno masaariifta nafsiya nabad baan iska nooloo Soomaaliya noo dhaata kii doonabaha qabsada ay ku leeyihiin laakiin aanay garanayn meel ay socdaan kuwa hormuudka u ah xisbiyada ololeynaya ugu jiraana mid kastaba ha ahaado intooda badan ma garanayaanba kuwa ay sharciyadooda inay soo akhriyaan laakiin wixii lagu soo yiri ay la yimaadaan marka hadhowto ma caawin karaayo meeshu fadhiyo iyo meeshu fadhiisanaysan horeba kugu soo sheegay ma garanayo ka waxaan ku oran lahaa maxamed ahaan waxaan lahaa dadku dib iyagu hayso soo saxaan meelaha ay ugu ridayaan meesha danta ugu jirto meesha ay ugu wanaagsan tahay hayaga oo codkooda ha dhiibtaan oo ha hubiyaan halka ay codkooda marinayaan badan may waa inuu qofku uu hubiyo codka meesha uu marinayo ee uu ku ridayo maxaa Soomaalida maaha inaad gurigaaga kaliya aad ka xisaabtato inta dadka Soomaali maxaa ugu jira ajnabi maxaa ugu jira ajnabi oo dhan inta la isku qaado hataa maxaa interest ugu jira ma Central Party-ga Axmed imika uu ku jiro Minister Party-ga Axmed uu ku jiraaba interest noo ah oo caruurta waxbarashada cuntada wixii magaranayay shaqada wax walbada u wanaagsan oo aad soo xushay mise socialka u wanaagsan mise waxa u wanaagsan kuwan kale leedo Grossan Central Party-ga aduna idinka yaqaan laakiin qofku soo akhriyaa baa wanaagsan oo uu xisbiga uu marka uu ku qanco laakiin ta meel istaago qaar badan baa wuxuu leeyahay in lagu ridimayno cidna u ololeynayno taasna waxa weeye waxaan xasuustaa bari ra'iisul wasaaraha Norway ugu yimid meel ugu soo galay marka wuxuu yiri nin ku necab intuu meel ugu soo galay iyaga farfadhiyay buu yiri ugu rida oo Arpes Party-ga ugu rida hadaa ugu rido weeyeen nin ku necab biyun baa imanaya ujeedadu waxa weeye hadaa waxba aad dooran weydo de waxa weeye